السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي aad baan idin salaamay walaashin shankaroon channelka igala socotaan waa channelkeeni shankarool channel. asxaabtayda inta igu cusub subscribe ii saara, like, comment, inta hore ila joogtay soo dhawaada, waan idin jeclahay, ha iga teginina, maxay tan dhiiri geliya, aad baan idin jeclahay. isbuucyadan amase maalmahan waxaa la dhihi karaa one month ama bil waxba ma soo gelin video waxaa igu dhacday dhibaato, geeri baa igu timi. aabbahay Allahu naxariisto, aabbahay baa dhintay. asxaabta intii videogan daawata aabbahay igu soo duceeyay jannatu firdawsi aclaa ilaahay ha nagu kulmiyo, kitaabkiisa ilaahay midigta ka siiyo. maanta ayaan waqti u helay inaan video idin soo duubo oo idinla wadaago. asxaabay maanta waxaan rabaa videogan waxaan idinkula wadaagayaa gabadh walaashay oo wuxuu ku saabsan yahay horta qiso saa ku aragtaan maxay tahay jadwalka yacni amase qoraalka hoose wuxuu ku saabsan yahay qisadan waxay ku dhacday gabadh walaashayna oo Soomaaliyeed. kasoo waa gabadh Soomaaliyeed waxay kasoo jeedaa waddanka Djibouti. aslan Djibouti waa waddan Soomaaliyeed, Djibouti waa waddan Soomaaliyeed. marka gabadhan waa gabadh waxay ku nooshahay dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. waa gabadh aan asxaabnahay. dhibaatadan waxaa u geystay dhibaato ayaa haysata. awalan waxay u baahan tahay duco, marka labaad waxay u baahan tahay talada. waa gabadh waxay iga codsatay qisadeedan anoo aan adeegsanayn magaceeda amase yacni sawirkeeda, labada midna aan adeegsanayn, ayay iga codsatay inaan qisadeedan u bandhigo dadweynaha Soomaaliyeed inta channelkayga ku xidhan iyo inta arki doontaba, yacni inaan qisadan la wadaago. macnaha ay iga codsatay waxaa waaye horta kow inay gabadh walo Soomaaliyeed ay ka fiirsato ninka Soomaaliyeed ee wiilasha Soomaaliyeed qaarkood, ayagoo dhan ma wada dhahayno, laakiin qaarkood wax kastaaba iyagoo qadariska haddana wiilasha Soomaaliyeed way badan yihiin, qaar xun way badan yihiin, qaar fiican. awalan waxay iga codsatay oo kale oo tiri asxaabta maxay haytaanay yacni arkaysa qisadayda oo videogan daawan doonta, tala ahaan inaa wixii aad tala iyo tusaale ku siin kartaan. waayo tala waa maxaa la dhihi jiray, tala rag waa nooli. waxa la dhahay qofka wax kuu sheega wax badan waa aragtaa, qof wax ku siiya laakiin wax kuu sheega wax yar baa aragtaa. marka qofka walaalkaaya ee wax kuu sheegaya waa qofku jecel. marka walaalahay yacni waxay naga codsanaysaa gabadhaas Soomaaliyeed inaan siino taladaas oo markay waxay information ay falanqayso wixii uga soo baxa amase wixii dadka u bataan ay yacni qofka isagoo tiisi meel u taal ayuu haddana tala raadiyaa. marka taladii wax laga yaabaa markaad wixii isku celceliso waxbaa kaaga soo baxaya. wax laga yaabo waxa kaaga soo baxay inay ku anfacaan. laga yaabay maanta markay taladeena dhegaysato amase ay aragto inay uga soo baxaan yacni de wax anfaca ama nolosheeda wax ka bedela. marka asxaabey qisada horta aan idin bilaabo, bacdeen markaad dhegaysataan ee dhuuxdaan ay fahantaan gabadha aragtaan waxa ku dhacay, wixii talo iyo tusaale ah commentiga xagga hoose noogu reeba. gabadhan Soomaaliyeed waxay ku nooshay Qaahira muddo 4 sano ah. hadda muddo 3 sano ah wiil Soomaaliyeed ay isguursadeen. wiilka Soomaaliyeed hadday isguursadeen labadii sano hore caadi bay wada noolaayeen. sanadkii dambe waxaa dhacay problem, yacni family problem saa'ida. ilaahay wax u bada. hadda waa gabadh xaamila bishii 7 ay ku jirtaa, laakiin ilmo hore ilaahay ma kalaasi kaas imika caloosha ilaahay u soo nabad keeno ku jira. gabadhan Soomaaliyeed waxaa ku dhacday wiilkii aduu markay sanadii baris qabeenba waxay ka aragtay isbedel.
isbedel hadday ka aragtay kolle ayada say ka rabtay ama say ku yacni dadka markay isguursanayaan soomaalida maxay tidhahdaa guurku waa god gacanta la gashado laakiin se qofka markaad guursanayso xun baa lagu doortaa de qofka la iskama guursado yacni de waxyaalo badan bay ka wada hadleen waxyaalo badan bay ka heshiiyeen waxyaalo badan bay isku ogaayeen wixii dhan iyo ballamihii iyo wixii la isku ogaaba uga baxa kaaga darana waddankan waa iska qurbana waa yaqaaniin intii taqaanaa way taqaanaa intaan aqoonna way arki doonaan kolley qurbaha dadka soomaaliyeed badankooda way halaabaan amase de waxay noqdaan dad yacni nolosha kasii daciifaya ama kasii dhacayaan balwaday bartaan maxay haytaane waxyaala aan de yacni aan fiicnayn nafsi ahaanna diin ahaanna fiicnayn bay ku dhaqmaan okay adigu muddo sanad iyo bara isbedel bay ka aragtay laakiin sanad waxaa jiray family balabalaya oo ka jira guriga dhexdiisa isku soo wada duuduub wiilkee soomaaliyeed wuxuu sameeyey hadda gabadhan waxay ku jirtaa bishii 7 waa gabadh xaamila ma shaqaysan karto oo waa qofku markuu xaaladdaa ku jiro isaga ayaa u baahan in loo shaqeeyo habeen madow wuxuu dhahay yacni xilli habeena oo meelna yacni dadka ay dee qof waliba gurigiisa habeen dee dad muslima baan nahay qof waliba gurigiisa ilaahay waasan ha ugu bariyo gurigiisa qof waliba wuxuu ku sugaa in ilaahay waasan ugu bariyo waayo ilaahay baaba dee maxay haytane waxba layna amray inaynu maalintiina shaqaysano habeenkiina seexano marka qofku haddii ilaahay nabad kusoo geliyo gurigiisa maalintii wuxuu soo qabsanaya soo qabsado laakiin ilaahay hadduu nabad kusoo geliyo gurigiisa waa alxamdulilaahi waxay tidhi abbaara habeen xilli dambe ama si adigu intaan salaada subaxa la gaadhin in yar ka hor ayuu albaabka igu soo gargaraacay bacdeen wuxuu igu dhahay abbaayo guriga banaanka uga bax xaamilo weeye meelay aado ma taqaano xilligaas cid soo jeedo maba jirtoba waxaan ku idhi bay tiri walaalow maxaa yacni waxaa barabalan jira maba ka arki kara yacni goo iga bax mucjisaad waxaan arki jiray anigu kolley soomaaliya markaan joogay qaahiro warkeed ba iska daaya waaba kaasi soomaaliya markaan joogay waxaan arki jiray dee markay isku dhacaan dadku ninkay xaaskiisu markay isku dhacaan kolley qasab way isku dhici karaan dadka carabi labadan baa isugu dhow ma dhahin maxay isugu dhaceen laakiinse carabi labadan baa isugu dhow oo way isku dhacaan way isqaninaan baa la dhahay marka dee dadku way isku dhacaan dad meelkooda noola khasab way isku dhacayaan laakiin waxaan arki jiray dadka markay isku dhacaan aniga haddaan kasoo qaado familigayga walaalahay wiilasha walaalahay iyo xaasaskooda markay isku dhacaan walaalkay wuxuu iman jiray gurigayaga because gurigeeda ayadu uga soo tegi jiray gabadha dee gabadh baan arki jirnay gurigeeda markay ninkeeda isku dhacaan looga tagee ma gabadh baan arki jirnay gurigeeda laga saaro oo haddana maxay waa gabadh xaamila laakiin aslan maba dhaqan soomaaliyeed maba moodaynba aniga in gabadha guriga laga bixiyo mucjisaad wallaahay waaga ma kuu baryayay buu dhahay dee ayadana ma bixi karto haddana wuu jir dilay jirgir badan u geystay wuu dhibaateeyey calaa kulli xaal way iska carartay gabadhay may asxaab yihiin wallahi gabadha cid ay family hadda qaahiro wallahi family iyo waxaas ma jirto waa qurbe waa iska garanaysaan waa qofkii aad isfahantaan iyo maxay haytan adiga jeebkaaga unba kugu haya marka qof ay isfahmeen oo gabadh soomaaliyeed ayay baaka u garaacday xilligaas waa ilaahay maxay haytan wuu u sahlay inay hesho taasay tahay telefoon wuu kala hadhay waxba ma sidato oo xataa qof ma wacan karto sharcigeeda magaalada ku joogtay wuu kala hadhay maxay haytaane ilaahay uu la kulmiyey gabadhaas waa way albaabka way ka furtay way isareen hadda gurigeeda ku sugan tahay maxay tani ha ku sugnaato waa gabadh xaamila oo dee maxay haytay qofku markuu saas yahay kala yahay barbalayn uma baahna meel isagu degan yahay qurbe qofkii garanaya dee qurbe korsaar iyo dhibaato maba galoba qofku meel isagu degan yahay inuu ku nasto ay u fiican tahay mar kastaba bini-aadanka
marka hadda daday gabadhaas korsaar ku tahay waliba gabadh Soomaaliyeed oo iyaduba maxay haytana qurbo ku nool oo ilmo yar ku korsato oo duruufta adduunka la daala dhacaysa bay ayadana ku sii tahay korsaar dharkii uu kala haray sharciga magaalada ku joogto uu kala haray telefoon uu kala haray family-geedii iyo reer xaafadoodii waxa jiraan Djibouti saasay tahayna ninka saas u sameeyay wajcasha waxaan ilaadaa marmar jacaylka la sheegaya muxuu talow jacaylku waa wax nooceeya يعني ويابنا مرات قاركود waxay ku dhacaysaa isagay kaaga sheekeynaysaa yani dhaqankii hore sidoo hore wixii hore kugu soo labcelinaysaa macnaha waad ka dareemaysaa rabitaanka waxay tiri marka family-geedi waxay dhahaan yani waan ku soo saacideynaa waan ku soo caawinaynaa meel iska deg waxaan ku wada hooyada waa maamo waayeen waxay tahay anigu bishii walaalay hooy waxaan ku awoodo ilaahay ka soo qaadan ku siinaya meel iska deg ninkaas ku noqon anaga tala ahaan waxaan dhahnay sidaas annagana wixii aan ku Soomaalinimo kugu caawin karno waan kugu caawinaynaa meel iska deg ku noqon ayadii go'aan cad ma haysato haddana way cabsanaysaa oo guri kasta degto inuu albaabka u soo gargaraaco oo bay ka cabsanaysaa waayo maxay haytaanay awalan telefoon baa lagu caawiyay oo dad Soomaaliyeed walaalaheedii ku caawiyeen wuu haystaa Facebook-geeda wuu haystaa WhatsApp-keeda wuxuu leeyahay magaalada meel kasta aad ka joogto waan ogahay ayadii markaad tiraahdo naa walaalay hadda naftaadaba khatar ku jirtay maxay tan booliska ma ogeysiinaysaa in maxay tan hadda caawa dhibaato kugu dhacday soo kugeys wiil Soomaaliyeed ayadu gabadh Soomaalinimada wax kartaa ayadu xalay wiil Soomaaliyeed boolis ma ku dalban karo way ku saxantaa isaga dhibaatadan uu ku wadaa cabsi bay ku nooshahay haddana go'aankan qaadan lahaa baan bagaran lahay bay leedahay yani go'aankii allaale go'aanan qaato baan bagaran lahay bay leedahay asxaabey gabadha maxaan kula talinaa kole anigu isku meel baan joognaa kafool baan u kulanay warax baan ka qoray waan qayb kamida waan idin soo wadaagay idinku maxaa odhan lahaydeen ama se maxaa kula talin lahaydeen waa nooceeba qaado odhan lahaydeen aniga mar waxaan dhahaa walaalay iska dhoofo Djibouti iska tag waa gabadh xaamila waa gabadh masaakiina marka horta hal mid waxaan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed ilaahay ka baqa gabdhihii waa rafaadiseen waa kufsateen waa disheen taa guursateen saasa u galisaan yaa rabbi yaa raxmaan ilaahay horta wiilasha Soomaaliyeed qalbigooda ha qooyo tan labaad waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed walaalay gabadh walba Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay horta meesha toosan isaga oo ilaahay meesha toosan haynagu hadeeyo dhamaanteenba laakiin ka fiirsada nimanka aad guursanaysaan ilaahayna kuwa khayr qaba idinku beego inta maxay tahay marwooyinka ana ilaahay idin barakeeyo ayaan leeyahay soo jijkiina iyo caruurtiina asxaabey waan idin salaamayaa barnaamijka sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga like iska saara subscribe-tina maxay tahay lacag maaha maxay tahay subscribe-ta iska soo qora subscribe iska saara ma leeyahay maanta hadalkaba igu goynaya wallahi yani waxaan ka dareemay muruga ayaan dareemayaa sababtoo wallahi dhibaatada haysato dadka gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood markaan arko aad ayaan uga damqadaa marka walaalayaal subscribe iska saara commentiga xagga hoose igu reeba aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh